صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. waa tahay saaxiibada aynu hawada ku saaxiibnayo ku soo dhawaada muuqaalka xiga ee channelka Kunsiyara Official. sida aad title-ka ku soo aragtaba maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qaybtii labaad ee qisadii la magac baxday calaf iyo jacayl. qaybteedii koowaad waxay inoo joogtay iyagoo oo ay ka soo ambabaxeen ama 12:00 iyo barka subaxnimo ayay ka ambabaxeen magaaladii ay joogeen. qaybteedii labaad waxaan ka bilaabi doonaa dhammaan dalxiisayaashu waxay sitaan sahaydoodii aad ayay uga faraxsan yihiin dalxiiskan. intay jidka ku sii jireen waxay gudaha baska ka bilaabeen hadallo kaftan ah. dhammaan waa dhalinyaro, waxaa farxadooda u dheereed labiska quruxda badan ee ay xidhan yihiin. muddo 3 saacadood ah ayay ku qaadatay inay gaadhaan meeshii u socdeen. markay dhammaantood dhulka cagaha soo dhigeen waxay indhaha la raaceen muuqaalka yaabka leh ee dhulkani leeyahay iyo neecawda macaan ee ka dhacaysa. waa goor barqo ah, jabiguna aad u macaan yahay. Professor Aadan wuxuu ardayda ku wargeliyey inay fasax u yihiin bilowga dalxiiska, wuxuuna uga digay meelaha khatarta ah. kadib ardaydii iyagoo isku qaybiyey dhowr kooxood ayay koox weliba jiho u dhaqaaqday. Khalid wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu muddo karsan jaamacadda, isla markaana wuxuu ka mid ahaa xubnihii fikradda keenay in dalxiis loo baxo. balse Khalid maalintani waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale, sababtoo ah waxaa maalintan ku cusbaa dareen xiiso geliyey naftiisa. oo markuu baska ka soo degay indhihiisu waxay si toos ah ugu dhaceen hoodo oo intay ardaydu dhulka daawanaysay isagu wuxuu ku jeeday gabadhan. falaadhaha cadceedda iyo laydhka macaan, jabiga xasiloon iyo lebiska qurxoon ee ay hoodo wadato iyo farxadda ka muuqata ayaa mar kale isugu beegmay. waxaa halkaa ka dhalatay in Khalid uu dareemo xiiso iyo galgacal saayid ah. maadaama ay hoodo tahay gabadh aad loo ilaaliyo, waxaa maalintanna la socotay habaryarteed, waxaana adkaatay siduu Khalid ula kulmi lahaa hoodo. waxaa gelinkii hore la soo wareegaba waxay gaadhay duhur, isla markaa waxaa dalxiisayaashii lagu wargeliyey inay dhammaantood isugu yimaadaan geed damal ah oo aad u weyn, hadhkiisuna wanaagsan yahay. si loo qadeeyo, Khalid wuxuu codsaday inuu isagu qaybiyo cuntada, waayo wuxuu weli raadinayaa fursad uu kula hadlo hoodo. Khalid wuxuu cuntadii qaybiyaba wuxuu soo gaadhay bartii fadhiday hoodo, wuxuuna la kulmay hoodo iyo habaryarteed iyo wiil ka mid ah dalxiisayaasha oo gooni u fadhiya. isagoo qalbiga ka naxay ayaa waxaa dhigihiisa ku soo dhacay hadallo ay isweydaarsanayeen 3 qof oo ah habaryar, wiilkan inaad aqbasho ayaan kula jeclahay. Khalid isagoo ka biyo diiday wiilkan hoodo loo sasabayo ayuu cuntadii u dhigay. markuu dib u laabtay ayay la hadashay hoodo, waxayna ku tidhi, walaal, waxba maad cunine nala fadal. Khalid intuu yidhi mahadsanid ayuu iska dhaqaaqay. markii la qadeeyey ayaa waxaa la bilaabay sheekooyin iyo kaftan goosgoos ah, balse Khalid kamuu qaybgalin. goor ay casarkii tahay ayaa loo dareeray dhulkii lagu dalxiisayay, balse Khalid kamuu qaybgalin, wuxuuna keligii joogaa baabuurta agtooda. hoodo waxay dhalintii ka dhex weyday Khalid, waxaana loo sheegay in Khalid uu ku sugan yahay baska dhexdiisa. hoodo intay habaryarteed ku tidhi waan soo noqonayaa ayay Khalid oo keligii ah u timid. waa tahay saaxiibada aynu hawada ku saaxiibnay, halkaa ha inoo joogto qaybtii labaad
ee sheekadii la magac baxday calaf iyo jacayl. inta aynu qaybta saddexaad kaga kulmi doonno waa saaxiibkiin maxamed cumar cali maxamed arkay oo idinkaga tegaya amaano allah.